madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa qasriga madaxtooyada Puntland ee Garowe ku qaabilay wafdi ballaaran oo hogaaminayo safiirka dalka Masar ee Soomaaliya Ambassador Maxamed Ibraahim Nasser. Kulanku madaxweynuhu la qaatay safiirka ayaa waxaa ku wehelinayay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada. Madaxweynaha ayaa ka warbixiyay kulanka uu la qaatay safiirka dalka Masar ee Soomaaliya iyo wafdiga ballaaran oo hogaaminayo. dhankiisa Ambassador Maxamed Ibraahim Nasser ayaa ka warbixiyay kulanka muhiimka ah uu la qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. maanta oo bisha tahay 29 bishii afraad waxaa booqasho ku yimid waqti uu hogaaminayo safiirka dowladda Masar ee walaalaha nahay iyo wafdi ballaaran oo 12 qof ka kooban oo la socday. runtii waa safar muddo badan ay safarro badan ku yimaadeen, laakiin safarkii ugu ballaarnaa wafdi intaa la eg uu yimaado weeye. waxaan aad uga mahadcelinaynaa safiirka dadaalkiisa ugu jiro sidii uu u kobcin lahaa xiriirka iyo wada shaqaynta dalka Masar iyo Soomaaliya. wada hadalladii qaybihii hore ayaan yeelanay, qaybo kale oo duwan oo yeelan doonaan muddo 2-3 berina dalka ay ku sugnaan doonaan ilaa ay magaalada Boosaaso tegi doonaan. safarkan wuxuu ku wajahan yahay sidii loo kobcin lahaa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Masar iyo Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyo xiriirka wax wada qabsi dhinaca horumarinta dhinaca caafimaadka, waxbarashada, cadaaladda iyo arrimaha kalluumaysiga iyo kheyraadka kale ee xoolaha iyo wixii la halmaala. waxaan rajaynaynaa muddada ay joogaan inay wax badan oo ay arki doonaan kana baran doonaan. waxaan rajaynaynaa insha Allah iyadoo horeba calaaqaadka iyo xiriirkeenu ugu jiray oo dalka Masar Puntland dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaalaha kale wax ka qaban jirtay. waxaan rajaynaynaa kulankan iyo safarkan inuu ka duwanaado safarradii hore oo xiriirka maaragtay ay la leeyihiin Puntland inta ka sii xoogaysto. aad baan uga mahadcelinayaa safarkaas muddada dhowrka beri qaadan doona. waan uga mahadcelinayaa safiirka iyo waftigiisa aad u mahadsantahay. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أتوجه بالشكر بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الوفد المصري اللي موجود دلوقتي لفخامة الرئيس على الاستقبال والضيافة والكرم اللي احنا شفناه لغاية دلوقتي. أنا سفير مصر لدى الصومال وأنا جاي مع وفد كبير من مصر لمناقشة العلاقات الثنائية مع بونتلاند في إطار علاقاتنا الأوسع مع دولة الصومال. الهدف من زيارة الوفد هو إن شاء الله تعزيز العلاقات التجارية مع بونتلاند واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات وتطوير العلاقات القائمة بالفعل سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة أو في مجال التجارة أو في مجال التدريب وبناء الكوادر البشرية لبونتلاند في إطار التعاون الأكبر والأوسع مع الصومال. ده بيعكس اهتمام مصر والتزامها بدعم الإخوة وأشقائها في الصومال بناء على العلاقات التاريخية. حمزة كافي أحمد ورارك تلفزيون كعالمي GBC.